السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالقة soo dhawaada maanta halkan waxaan ku duubaynaa haddii aad u baahan tahay website-keena inaad ka iibsato koorsooyin iyo waxyaabaha la halmaala marka koowaad waxaa waajiba inaad akoon ku leedahay website-keena sidaad isku diiwaan gelin lahayd ayaan dabcan halkan iskula fiirinaynaa marka koowaad waxaa imaanaysaa browserka hadba midkaad adigu doorbidayso ee kombiyuutarkaaga kugu jira halka search barka ayaa waxaad ku qori doontaa futuux ereygaas ayaad ku qori doontaa kadib waxaad dhahaysaa search oo waad raadinaysaa futuux waa kan website-ka waa linkiga ugu horeeya futuux ama home xitaa futuux halkan oo ku qori kartaa waa isku mid futuux ama futuux labadaba waa isticmaali kartaa mar walba waxaa usoo hormari doona website-keena kadib waxaa ku dhufanaysaa linkiga koowaad markaa ku dhufato kadib waxaa kuu soo bixi doona website-keena isagoo dhammaystiran waa kan waad firfiirin kartaa dhammaan waxa uu ku saabsan yahay website-keena muhiimaddeena maanta waa sideen isku diiwaan gelin karnaa haddii aynu nahay arday cusub haddii aad ka isticmaalayso kombiyuutar sida hadda aniga aan samaynayo oo kale waxaa kuu bannaan laba weji marka koowaad waa inaad isticmaashaa badhanka ay ku qoran tahay get started kaas oo kuu xawili doona dashboardka guud oo lacala haddii akoon hore aa ku lahayd aad ka soo geli kartid ama waa cusub tahay keliya waxaad samaynaysaa batankan hoos yaala ee ku qoran tahay join for free kaas ayaad dabcan gujinaysaa halkaas markii aad gujiso kadib wuxuu ku geyn doonaa bejka isdiiwaangelinta ardayda waa halkan sida kaaga muuqata student registration halkan wuxuu kaaga baahan doonaa magacaaga koowaad magacaaga labaad usernameka ku isticmaali doontid email sax ah iyo passwordka mar labaad oo iska hubinaysid intaasoo keliya waaye hadda waxaan rabaa inaan diiwaan geliyo arday ka mid ah ardayda soo codsatay inaynu diiwaan gelino si aad idinkuna nooga aragtaan kadibna ay idinkugu fududaato isdiiwaangelinta ayaan idinkaga samaynay muuqaalkan marka koowaad halkan waxaan ku qoraynaa sharfan magaca labaadna cabdiraxmaan waayahay usernamekeeda waxaan ka dhigaynaa sharfan emailkeeda waa qarin doonaa dabcan waa kan emailkeeda waa aan gelinay hadda waxaan gelinayaa passwordka ayadu midka ay doonto way ka dhigan kartaa oo hadhow way bedelan kartaa waa gartay waa saxan yahay hadda passwordkeena sida kuu muuqata kadibna waxaan samaynayaa keliya batankan ay ku qoran tahay register waa arkaysaa si sax ayaan u diiwaan geliyey ardaygan si toos ahna wuxuu inoo geeyey dashboardkiisa waa halkii uu ka arki lahaa koorsooyinka iyo waxyaabaha dhammaan khuseeya ardaygaasi isla markaa ardaygaasi uu isdiiwaan geliyo waxa usoo dhici doona fariin emailkiisa kusoo dhici doonta waa sababta aan kuu leenahay emailkaaga ha kuu saxnaado sidoo kale emailka haddii uu saxan yahay wuxuu kaa caawinayaa haddii passwordka uu kaa lumo oo kale oo halka lagu soo diri lahaa reset linkiga idan marka emailkan ayaa usoo dhici doona aan isla furno waa kan si sax ah ayaad isku diiwaan gelishay sharfan cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay kadibna qofka wuxuu samayn karaa halkan go to dashboard inuu yiraahdo si automatic dashboardkiisa ayaa loogu furi doonaa sida aniga hadda aan samaynayo oo kale si automatic ah ayaa loo keeni doonaa website-ka oo waa kan waa uu soo kacayaa hadda wuxuu ina weydiinayaa usernameka aan samaysanay iyo passwordkii haddii aan xogta halkan geliyo wuxuu si automatic inoo keeni doonaa dashboardkii ardayga uu lahaa idan marka halkan waxaan gelinaynaa usernamekii halkanna waxaan gelinaynaa passwordkii waayahay qofka wuxuu dhihi doonaa keep me signed in saan aa u fiican mar walba si uusan password u weydiin kadibna sign in ayuu dhihi doonaa waayahay sidaa arkaysid wuxuu usoo qabtay dabcan isbaara loo dhigtay qofkan oo waxaa layidhi ma soo geli kartid website-kan sababtana anigaa kuu sheegayo website-kan haddii akoonkaaga uu ka kacsan yahay meel kale halkan kama geli kartid waa inaa halkii hore aad ka soo baxdaa muhiim ma ahan inaad kombiyuutarkaagii raadisid si aa halkaa ciwaankaaga uga saarto ama mobilkaagii aad soo raadisid keliya waxaad samaynaysaa halkan ay ku qoran tahay clear all active logins tan ayaad gujinaysaa
kadib mar labaad ayaad halkan waxaa gelin doontaa usernamekaagii halkanna passwordkaagii kadib sign in ayaad dhahaysaa waa kan si automatic uu soo kacay safe dhoo haddii website-ka yacni device-ka isticmaalaysid ku kalsoon tahay sida mobilkaaga iyo computerkaaga oo kale ama never dheh labada kii kuu fudud idan aad ayaad u mahadsantihiin soo dhawaada ardayda